laga bartay oo inta si galaftu meel ku soo siimeen dawladda Cabdiweli maxaa ay kaasa khasaaس ay ku timi wayna dhaqtay sida runta ah mansaas waxay ku bilaabaysay wuxuu boqorkiiga ee nagu beeray uunka adoomihiisa bariga iyo bashar nagu asteeyo mahadaada badina wax kasto banaan oo wanaag lagu bineeyana ku bilownay magacaaga bismillaah yeebo bishaareyadiga iyo xaq noo bayaansho raxmad noo balaqay iyo baarigi makaad iyo baxsan oo rasuulkii baaqiisa raacan oo salligiisa boganay bactiga iyo qiyaamaha barbarkiisa naga yar اللهم صل على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه dadka reer Puntland baalaha adduunyada qaybaha ku baahiyo kuwa jooga beledkii farxad iyo baraaraha isbedelka aad u baahnay bishaarada idintini qiimaha ballaaran ee sida heerarka badihi iyo buuraha dushooda iyo qorax soo baxaysa bardheer laga bidhaanshay aan tilmaan u baahnayn inaan idin bogaadsho idin baarigaabaan aniguna la baaqay oo baryada u soo diray idinkuna bilkhayr dhah baaqaygan culus oo halkaad beegsanaysaa 100 kilomitir iyo bogcada isu muuqdiya baabuuru kala hoyay baramaha kaliya waa duni ballaaran afrikada barkeeda kamana wada baxay sidoo been sheegi maayee waa ku bartaraya ee beledkii udgoonkiya sii beeg Puntland adiguna habaydihin iyagana habaalmar halkaad beegsanaysana aan ku bilaabee barigii sanaag iyo xeebaha badda cas iyo barihii ceelaayo geeldoora buurtii ceerigaabo baalaha sii baridii laasfaray hadaftimo oo buuxdiya xingalool ku sii bogo wadadii buraan iyo baradii suldaanada baranoo halbowlaah iyo baryadhahagu sii hoyo oo boqol dhankaa bari yaa gaaray boqorrada bandarkii cisiga iyo ilbaxnimada baydkeed subarbaawarnimo iyo boqortooyo guur iyo barta taajku yaaliya qardhabaasha sii dhigo oo saasiya caluuliya halka bayda laga helo khayraadka badihi iyo doonyuhu burqanayaan isku shuban buudeediyo ku bari saxaafuun bayliya qandare iyo baargaal dushiisa isu buribad iyo eyl bilan ay dangorayo bartamaha nugaal iyo garowgana ku baashaal iyo dhaca rabaablena soo baroodalxiis bogo hurjigii Puntland iyo ka bilow bartaa mudug biirkii iyo miis iyo gaalkacyo beledkii badweyntii hindiya iyo garacabo barwaaqa banaankii cadduun iyo beeshii jiriiban burtin loogu baalyaal iyo ka batari bacadweyn waxba yaanan boodine wadankii ballaadhnaa iyo kama bixin Puntland weli ee birlamaan la mari karin baraan lagu degdegin iyo barbuudo aan la gelahayn bahdood birimagaydiya baarsan ay ka joogaan baaqyahow galdogob iyo sii beeg bursaalax dadka reer Puntland iyo beeshu waa tallowdaa oo boqolaal degaan iyo baallaha danood iyo bartamaha Itoobiya agagaarkii booq iyo ceel cadow biyaysan ee farxad iyo bishaarada bahdood kala hayaan oo batar ay ka tumayaan qaybtii ugu ballaadhnay baaxadii daraawiish beledkii garaadada barbarkaa waqooyi iyo bogox oo dhan baa hadhay waanse kula ballamayo kama wada baxay sidee waa kuu barjarayaa ee baaqaygu wuxuu yahay baarlamaanka xuran ee laga keenay beelaha iyo madaxweyne ay baadheen oo ka baaraan degeen oo ay Puntland u doorteen badbaadada dalkeena iyo federaalka buuxana deegaanka ka ahaa maantana Puntland yimi hormoodnimo ku caanbaxay hadeer aan la baranayn aqoon baaxad weyn iyo cilmigu bixinayay rabbigay wuxuu baray markii looga baahday bulshaweynta Soomaaliya dadka reer Puntland kagaamu bakhayrine inuu samata bixiyo Boston iyo Mareykan uga soo boqolay nin baqiiqda kama dhalan ee ku barbaaray mudugee Mr. Professorka dadka reer Puntland waqti aad u badan iyo bilanaa walaayeen baaqiisi dheeraa iyo ballanqaadkii weynaa iyo booqashadii ku tegay iyo baran uu ka sheegay dadka reer Puntland waa la kala baxaya oo bilowga January ballankeenu weeyaan hadalkiisi loo bogay maanta uu bayaan yahay boqorkiina ka aqbalay iyo ku xigeen ay baareen oo ka baaraan degeen oo ay Puntland u doorteen oo dhulka baawarka ee weyn xagna barrisamaadka bilicdii sanaag iyo sool baalaheediyo guud ahaan Puntland iyo buuhoodana metelaya guddoon baarlamaan oo dhammaan reer Puntland iyo bulshaduba ammaaneen mudug babacyadeeda cayn baalaheediyo buuhoodle iyo dhahar rag bashiishta kuma maqal ee dadka reer Puntland halyayada u soo baxay ay muddo baafinayeen iyo wasiirada la bidayo dadka booska qaban kara ee hawlaha badan iyo baadidoonka loo galay baxdan wada shaqaysiyo Puntland curadada u kacay salaan iyo bariidaan ugu diray bartooda burhaantii qarnigan iyo qaar lagu baxsado iyo nuqra kuwa ballaaran aan baaqan weligood isna lagu baraaro marka lagu badbaado bulshaweynta Soomaaliya Puntland ay ku faantaa taariikhda lagu biro bayt wada qurxoon iyo baal dahaba lagu qoro baxda maanta nool iyo ubadkiina berito kuwa beermi doonaan ifka weli u soo bixin boqolaal sano kale idin wada bogaashaan ee baaqaygu wuxuu yahay runta lagama bayro
ee balwadiinu yay noqon barta laamigee dheer ee puntland ay ku caan tahay iyo bartamaha garoowe oo baabuurta raaxada basas wada qurxoon iyo laanguruusarbooda biikaabistaafa lagu beretanayo hadba laysku baacsado ee noqda kuwa ballaadhan maamulkooda baahsha waagii beryaay iyo habeenkii bilowdana soo jeedka badiya wixii lagu bariistay ka bukiya ka baylaha iyo ka badhaadho weyn qaba bulshadana warkeed hela barta ugu dambaysiiyo bari iyo sanaag taga nugaal baalaheed iyo mudug baahiyeedow aasaaskii puntland walaalihii isbiirsaday beelihii midoobay qaybaa bannaan degay barda khaatumana dhigay dadka reer puntland iyo bahdood maanay diidine basanbaaskii jiray iyo heshiiskii la buriyey iyo maamulkay ka boodeen war buunda laga tallaabo iyo adiguna bireej noqo lagu baayactamo uun baabuurkii marayo aan bireeg lahayn iyo aniguna bir baanahay kugu baawar doonta na wax lagu bahoobo walaalnimada bilo oo puntland lagu ahaada baaqaygu wuxuu yahay haddiiba ay bannaan tahay oo bahdin idinka yeelaan heshiiskii la buriyiyo wixii hore bedelaysaan idinkuna badheedha oo boqol bay ka lulataayeen midnimada badbaadsha walaalo isu baahan bela kala dhex oolin isna kala boqoolay cilladooda baar oo isu baadi doona habkii lagu bilaabiya baawarkay lahayd iyo puntlandtii dhabta ahayd aayihiinna berrito isbeddelka adduunka midnimada puntland ishaysiga bahdiinna meel dheer bidhaansha oo saasay ku badisaaya isu keena beela puntland curadada u kacaya bahda wada shaqaysaay burhaantii qarnigan iyo qaar lagu baxsado iyo noqda kuwa ballaadhan aan baaqan weligood isna lagu badhaadho marka lagu badbaado bulshaweynta soomaaliya puntlandna ay ku faantaa taariikhda lagu biro bayj wada qurxoon iyo baal dahaba lagu qoro bahda maanta nool iyo ubadkiina berito kuwa beermi doonaan ifka weli u soo bixin boqolaal sano oo kale idin wada bogaashaan ee baaqaygu wuxuu yahay runta lagama baydhee balwadiinu yay noqon siyaasadda bukaanka ee soomaali biisay iimaan aan badqabin iyo xaqa oo la baalmaro allaa naga badbaadsiye naar loo badheedho ama wiirtu bixiyo boqorka oo la caasiyo booli laga hodmaayo xaaraan lagu bararo xoola baytimaal oo bulshada u dhexeeya oo qaar baahan oo badan iyo agoontuna badh leedahay hantidoo la boobo iyo jeebabkoo la buuxsado siyaasadda bukaanka ee soomaali biisiyo baktigoo la quutaa balwadiinu yay noqon balwadiinu yay noqon ee ammaanada ballaadhan iyo xilkaa u badheedheen xoola baytimaala oo bulshada u dhexeeya idinkoo mar kala dayin ku toobadgelina rabbigiina kaga baca oo iska daa wax boob iyo musuq maasuq baahiya laaluush la bixiye mushaharka bishii iyo biilka idin soo galaa waa inaad badhiibtaan inta baahan ee kale iyo bulshada ugu deeqdaan si aad ugu badbaadaan puntland curadada u kacaya bahda wada shaqaysaay burhaantii qarnigan iyo qaar lagu baxsado iyo noqda kuwa ballaadhan aan baaqan weligood isna lagu badhaadho marka lagu badbaado bulshaweynta soomaaliya puntlandna ay ku faantaa taariikhda lagu biro bayj wada qurxoon iyo baal dahaba lagu qoro bahda maanta nool iyo ubadkiina berito kuwa beermi doonaan ifka weli u soo bixin boqolaal sano oo kale idin wada bogaashaan ee baaqaygu wuxuu yahay xilkoo laga baxaya hawshiina ad bogataan dhulweynaha puntland iyo xuduudaha ballaadhan ood baallaha iska taagtaan bereyoratiga iyo biyo kama dhibcaan tahay masaalixada beelaha nabad lagu bariist iyo amni baahsanays tahay bulshadoo dar yeeshaan haddii ay waxbarasho haqabtirka biyaha shaqooyina u bilowdaan oo laga baxayo hawshiina ad bogataan dhulweynaha puntland iyo xuduudaha ballaadhan ood baallaha iska taagtaan bereyoratiga iyo biyo kama dhibcaan tahay masaalixada beelaha nabad lagu bariistiyo amni baahsanay tahay dhaqaalaha burburay ee baaxaaddegaaya boqorsho lagu badbaadsiyo balayna u samaysaan musarkoo ballaadhoo bulshada adduunka iyo kuwa baalihiinana kula beretelaysaan barayaasha kaabaha dekadaho aad badisaan iyo garoommada aad bannaysaan iyo jidadkood binaysaan bulshadoo dar yeeshaan haddii ay waxbarasho haqabtirka biyaha shaqooyina u bilowdaan noloshoo la bilo iyo baahi caafimaad tahay lafdhabarta puntland iyo xoololayda baadiye ummadduna u badan tahay ood barnaamij weyn iyo bajad gaara siisaan beerahoo la falo iyo maclantoo la baadho baasiin la qodo iyo beeyadoo la dhoofo khayraadka badih iyo malay lala baxaa tahay beesha caalamka oo idhi puntland inay ku dayasho iyo bar tilmaaman mudan tahay ay markhaati boobaan maalgelin ballaadhan iyo hantina ay ku bixiyaan marka aad badhaadhaan bulshaweynta soomaaliya inta kale u baaqdaan waxaasoo barwaaqo oo aan wada bidhaanshay waxa ay ka beermaan dhigeedu uu yahay idinna kaga baxaysaan haddii kale barkumataal hal bacaadka lagu liso iyo caano baaqday ay tahay waa cadaaladaad binaysaan garsoorkoo la beegsadiyo sharcigoon la baalmarin oo muwaadinka puntlandhi hadduu madaxweyne bilan iyo boqor iyo wadaad yahay wasiir boos fadhiya iyo xubin baarlamaan yahay iyo wiilka jooga baadiye ee baylaari ku raacaa bulshadu ay u siman tahay qofna aan u burinayn isku si u bogsiiya lagu kala baxaayo isaguun la beegsado waxaasoo barwaaqii halkaasay ka beermaan idinna kaga baxaysa
puntland curadada u kacaya bahda wada shaqaysaay burhaantii qarnigan iyo qaar lagu baxsado iyo noqda kuwa ballaadhan aan baaqan weligood isna lagu badhaadho marka lagu badbaado bulshaweynta soomaaliya puntlandna ay ku faantaa taariikhda lagu biro bays wada qurxoon iyo baal dahaba lagu qoro bahda maanta nool iyo ubadkiina berrito kuwa beermi doonaan ifka weli u soo bixin boqolaal sano oo kale idin wada bogaadsaan deebaaqay wuxuu yahay qorax aan baxdaa tidhi hadalkoo la badiyo hal nagama buxsho dadweynaha puntland baa barbarkiina taagan ducana idinku beego rabbigood baryaaya inaad hawsha bogataan boqorkana wax kuma aha ee ku bilaaba niyad bira ballantuna waxay tahay waxa aad bislaysaan puntland uga tagtaan ee maanta aad u beertaan yaa beri idin hor yaalla